بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سؤال والله لها قارئة دمانتين أحبابي وأنا سلامية إلهي سبحانه وتعالى يا مهدس كله مركز وكان سعليي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا وباركا فيه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله دائما وأبدا. الحمد لله شكر لله. الحمد لله رب العالمين. soo dhawaada walaalayaal dhammaantiin waa idin salaamaya meel kastoo caalamka igala socotaan. maanta waa maalin jimca, waa maalintii la salaami jiray xabiibka sallallahu alayhi wasallam. in badan aan ku salina nabiga alayhi salaatu wasalaam. nuurka labada wiig suuratul kahfi laha hilmaamina ka faa'iideyso maalin walbo jimca akhriso sa u heshid nuur u dhaxeeya labada jimce. sidoo kale saacatul ijaaba ducada la soo celinayn ayaa ku jirta maalinka jimcada. ilaaha raxmaanka raxiimka arrimahaaga u sheego. soo dhawaada walaalaha qaaliga ka faa'iideysta dhammaantiin waa idin salaamaya. waxaa inii wadaa qisas laga arkay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. dhammaantiin waa wada ogsoonahay fadliga cadiimka uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam in lagu saliyo walaalayaal. maalinta jimcadana si khaasa ayuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam ii salaama macruudatan calaya ayuu dhaha waa la ii soo bandhigayaaye. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam salaam badan si loogu bandhigo aan badino maalinka jimcada iyo habeenkeedaba saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. soo dhawaada walaalayaal waxaa inii wadaa qisas laga arkay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. qisasku waa dhiirigelin waana ku dayasho maasha allah ka faa'iideysta walaalayaal. qisadan walaalo Soomaaliyeed ayaa ila soo wadaagtay. waxay tiri Faadumoy markii aan daa'imay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam siiqadan اللهم صل على سيدنا محمد ساسا ودهايه بيتر كن ايا مالكي كلا إمادا بيترادي. الحمد لله waxaan arkay beytir abaaya muddo 2 jeer bangigayga lacag badan oo ku jirta. xataa waxaan xasuustaa inaan is iraaday dawladdu ama daalac ku soo raacata lacagta badnideeda. ما شاء الله تبارك الرحمن كورم walaalayaal ilaahay subxaanahu wa ta'ala suu ugu risaaqay hooyada. sidoo kale waxay tiraahday ayadana waxaa la ii ballan qaaday sanadka soo socda xaj baa la ii ballan qaaday bay tiri Faadumoy. alxamdulilah ilaahay baa mahadda iskale. runtii waa qiso cajiiba walaalayaal. gabadha sidoo kale waxay tiri mar aan tagay xaramkii bay tiri Faadumoy waxaan ku arkay gabar u dhalatay wadanka Singapore u dhalatay bay tiraahday. waxay tiraahday saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam kun ayaan laasibay bay tiri. gabadhaasi waxaan ku iraahday maxaa ku heshay. gabadha si fiican waxay tiraahday umaysan aqoon luqadda Ingiriiska balse waxay tiraahday gabar kale ayaa iga turjumaysay. waxay tiraahday maxaa ku heshay marka ay iraahday saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama muddo dheer aad joogtaysay kun. waxay tiraahday bay tiraahday gabadhaasi 45 jeer baan cimro imid bay tiraahday. meesha ku wareysanayana waa beedkii ilaahay baytullaahi xaraam ayay tiraahday. sidoo kale waxay tiri markaan dhakhtar tagay waxay tiraahday caafimaadkayga dhan organadayda kulli waxaa la yiraahday qof macnihii saa u caafimaad qabo 100% ma jire maxaa samaysaa. marka waxay tiraahday waxaan ku dadaalaa akhriska saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. isla gabadhaas waxay ii sheegtay waxay tiri gabar baa in laga qabtay bay tiri. gabadhii waxay tiraahday qolba isku soo xidhay waxay bilowday saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. ilaahayna subxaanahu wa ta'ala wuu ku caafiyey. موجوداً ولاريال ما شاء الله تبارك الرحمن. سلينا النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام بينو الشيء سيدنا أبي بن كعب مركو كل يا نبي عليه الصلاة والسلام رسولك إلهي هذان دعاء إذا أردنك لك صلي على كورا نبي عليه الصلاة والسلام وحكي إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. هذا بولاريال أن كنت دالنا سلينا النبي عليه الصلاة والسلام أنا نرشي أنه كنت بخنو. qisadana ayadana goorba ka sheekaysay walaalay. gabadha waxay tiraahday waxaan ku celcelin jiray bay tiri saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aan caadaystay bay tiraahday. waxay tiri siiqada caadiga allahumma salli wa sallim wa baarik ala nabiyina muhammad wa alihi iyo waxay tiri siiqada ibraahimiyadaaba maalin walba waan akhrin jiray. waxay tiri waan ku celcelin jiray ilaa aan ka seexanayo bay tiri waan ku celcelin jiray bay tiraahday. waxaan dhihi jiray bay tiraahday rabbiyow itusi wax igu dhiirigeliyo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam aanan joojin bay tiraahday. alxamdulilah waxay tiri markaan saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ku celceliyey ducadeena aan ku celceliyey bay tiraahday oo dhaa ilaahayow itusi wax igu dhiirigeliya saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam inaanan joojin oo wado markaste
waxay tiri waxaan ku riyooday albaab weyn oo quful uu saaran yahay bay tiri qufulkaasoo aad u weyn waxay tiri qufulkii baan qabtay waan ruxruxay kadibna wuu furmay bay tiraahday waxay tiraahday markii aan riyadaas arkay oo qufulkii waxay tiraahday furmay oo macnihii jabay saa markaa u ruxruxay markaa qalbigayga waxaan iska iri bay tiri subxaan allah sidaa darteed ilaahay subxaana watacaala arrimahaaga saasuu kuugu fududaydinayaa waxaana u qaatay bay tiraahday inaana joojin arrimahayga ay saa u fududaan doonaan alxamdulilah waxay tiri riyadaas kadib waxaa noqday bay tiraahday qof mar walba riyadaas isku dhiirigeliyaa kadibna waxay tiraahday markaan saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam badiyo waxaan helaa bay tiri farxado badan oo noloshayda isbedelo waaweyn ayaan ku helay alxamdulilah walaalayaal ka faa'iidaysta ilaahayna weydiista inuu ilaahay subxaanahu watacaala saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam kuga joogteeya oo badiyo ilaahay subxaanahu watacaala idinka dhigo qisadaana walaalayaal gabar baa ka sheekaysay gabadhan waxay tiraahday 4 sano ka hor ayaan bilaabay bay tiri inaan si joogta ugu dadaalo oo macnihii ugu celceliyo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam markii aan ku celceliyay bay tiraahday bilowgii hore maalmo yar markaan waday waxaan dareemay bay tiri xasilooni iyo deganaan waxaana is-iri bay tiraahday ilaahow sidaas ayaa igu filan macnihii dee culaysadii ii hayay kadib deganaan baan dareemay bay tiri laakiin markii aan waqtigii aan sii waday oo mar walba ku celceliyay bay tiraahday saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noqday bay tiri wax ka mid ah nafsadayda waxay tiri sida cuntadoo kale macnihii wax aan mar walba u baahanahay oo mar walba aan raadinayo wuu noqday markii aan bilaabay ma aanan waxay tiraahday malaynaynin inuu noloshayda sidaa u bedelaya bay tiraahday sidoo kale waxaan arkayay bay tiraahday anoo mar walba raadinaya maalintaas waxaan rabay bay tiri inaan macnihii aan helo waxyaalo badan haddaa in la wadaaga bay tiri qisadayda dacooyin badan ayaa ilaahay subxaana watacaala ii rumeeyey bay tiri risiqa sida roobkii oo kale ayuu ii noqday arrimo igu adkaaba ilaahay ii fududeeyey mararka qaarkood waxaa qalbigayga kusoo dhaca oo aan ku hamiyo ayaan heli jiray bay tiri anoo afka ka sheegin ayaa waxay tiraa heli jiray waxaan ahaabay tiraahday haweeney la furay oo wiil haysata dhibaatooyin badanna soo martay ilaahay subxaana watacaala waxay tiraa weydiisan jiray bay tiraahday raalli ahaanshihiisa waxay tiraahday ilaahay weydiisan jiray sawj wanaagsan oo magaalada madiina waxay tiraahday inaan dego baan jeclaa bay tiri waxay tiraa waxay soo dooni jiray bay tiraahday dad guurdoon ah laakiin waan diidi jiray bay tiraa sababtoo ah qalbigayga waxaan ku haystay bay tiri hal rajo oo ahayd inaan guursado nin degan magaalada madiinatu rasuulillaah qof degan dadku waxay tiraahday waxay ugu oran jireen waxaad tahay qof la furay oo hal ilmaa haysata oo ilmo haysata oo wiil haysata maxaa guurkaaga shuruudo ugu xiraysaa laakiin aniga waxay tiri waa ku kalsoonaa ilaahay subxaana watacaala inuu awoodo ma aanan waxay tiraahday rabin inaan ka tanaasulo riyadayda iyo rabitaankayga waxay tiraahday intaas waxay ahayd jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam aan u qabo magaaladiisii inaan dego masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan kusoo tukado mar walba inaan soo booqdo nabigayga calayhi salaatu wasalaam waxay tiraahday marka mar walbana aan maqlo magaciisana nabiga calayhi salaatu wasalaam waan ooyi jiray waan hiloobi jiray alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu iigu qadaray ugu dambayntii inuu ilaahay ii rumeeyo bay tiraa rajadaydii waxay tiraahday waxaa yimid nin aan horay u guursan iga weyn 1 sano kuna nool magaalada madiino alxamdulilah waan isguursanay nolol baan wada dhisanay maanta waxaan ahay ninka xaaskiisa waxaana ku noolahay madiinatu munawwara magaaladii rasuulka sallallahu alayhi wasallam magaaladii ahayd riyadaydii ugu weynayd waxay tiraahday ku tukadaa xaramka iyo masaajidka barakaysan ilaahay subxaana watacaala wuu ii fududeeyey riyadaydii alxamdulilah mararka qaarkood waxay tiri intaan fadhiisto keligay waan isweydiiyaa sideebay riyada qalbigaaga ku jirtay oo waxay tiri oo keliya maantay ugu quruxda badan oo haysato waxay tiri wallahi markaan arko waan ilmeeyaa walaalayaal ha quusanina hana dayicinina ducadiina iyo cibaadadiina ku dara cibaadadiina saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam qalbiyadiina ku xira ilaahay subxaanahu watacaala qofkii xanuunsan ilaahay baa kugu caafinaya ka risiqa raba ilaahay baa kugu siinaya ilaahay subxaanahu watacaala
murugadu kaaga saaraya. wallahi waa faraj cajiiba. waxyaalo badan oo suurtagal ahayn oo isleedahay adiga caqligaaga suurtagal ma noqon, laakiin ilaahay subxaana watacaala xaggiisa suurtagal bay ka noqdaan. ilaahay bari, ducayso, sabar, sababaha wanaagsan la imow, arrimahaaga ilaahay inuu kuu fududo ilaahay weydiiso, khayrka ku dadaal. maasha allah tabaaraka raxmaan. ka warram walaalaha qaaliga qisada. maasha allah, allahu akbar. ilaahay subxaanahu watacaala waa calaa kulli shayin qadiir. kun fayakun bu waxa dunida ugu culus kaaga dhigi kara walaali. gabadhaas sida loo niyajabinayo bini aadamka ma jeedaa? maxaa adoo ilmo haysta baa shuruudo dad ku xiraysaa? nin madiino bas degan maxaa ku falaysaa? baa lagu dhihi jiray tiri. maxaa eramay rajada ilaahay subxaanahu wa yaqiinta lagu sheegay waa intaas. ma jeedaa walaalaha qaaliga? marka maasha allah tabaaraka raxmaan, ka faa'iidaysta walaalayaal. qisadan ayadana gabar baa ka sheekaysay. gabadhan waxay tiraahday waxaan leeyahay qiso waxaan kala kulmay bay tiri saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam, istikfaarta iyo xawqalada bay tiri. gaar ahaan saliga nabiga xoog baa u badin jiray bay tiraahday. markastoo dhibaatooyin ama arrimaha igu adkaadaan waxaan bilaabi jiray si joogtaa inaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu saliyo. waxaanan marar badan arki jiray bay tiri arrimahaygii oo waxay tiraahday ii fududaaday, arrimahaygii oo sida isku bedelayaan ilaahay fadligiis alxamdulilah. sidoo kale xawqalada ayaan waxay tiri ayadana ku dadaali jiray, gaar ahaan marka imtixaanada aan gelayo waxbaan baran jiray. waxbarashada markaan bilaabayo waxbarasho waan akhrisan jiray xawqalada subaxa hore 100 jeer baa intaan waxbarashada gelin akhrisan jiray bay tiri. mararka kalena waa badin jiray. subxaan allah. marar badan waxaan heli jiray natiijooyin cajiib ah oo dadka la tacajabaan. waxaan kaloo joogtayaa bay tiri walaalay akhriska qur-aanka kariimka, khatmul qur'aan baan leeyahay bay tiri, wardi qur'aana. gaar ahaan habeenkii iyo aroortii baan akhriyaa bay tiri wardigayga. runtii ma qiyaasi karay bay tiri barakada iyo arrimahayga siday u kordhayaan, maalintayda say u qurux badan tahay, dareenkayga iyo xasiloonida qalbigayga, farxadaha. waxay tiri waxaan ogaaday markaad cibaadada xoojiso iyo dikriga qur-aanka aad akhriso, wallahi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku siinayaa deganaasho iyo farxado iyo waxay tiraahday waxyaale aanan qiyaasi karin walaalayaal. maasha allah tabaaraka raxmaan. waxaa kusoo xasuusta walaalayaal qisooyinkan. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahaa man camila saalixan min dakarin aw unthaa wahuwa mu'minun falanuxiyanahu xayaatan dayibatan ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا بوضع لها قارقة إلهي سبحانه وتعالى رنبو الشيغ قفكي عمل وناكسن لي ماذا إلهي نرل وناكسن بكل نولين يا هذا بإنت دونيدا سارنتهاي كد ذا العمل ذا وناكسن والله ليال كد ذا الوردي سميس قرآنا حش السنوين كتكو ذكري ذا قروح ذا بضن لإمو كد ذا الأعمال وناكسن إلهي سبحانه وتعالى نرل وناكسن بكل نولين يا marka maasha allah tabaaraka raxmaan. ka faa'iideysta walaalayaal. qisadaana walaalayaal gabar baa ka sheekaysay. gabadhan waxay tiri waxaan haystay bay tiraahday 2 dhibaato ay haysatay bay tiri, aad bay iigu cuslaayeen bay tiri. mid kamid ah waxay tiraahdaa runtii ma aanan filayn bay tiraahday in xal loo helayo. waxaa is-iri bay tiraahday ku sali nabiga calayhi salaatu wasalaam, ilaahayna arrimahaaga u sheego, ilaahay inuu dhibaatada kaa saaro. waxaan rajeynaya bay tiri ilaahay ii fududeeyo. waxaan bilaabay inaan ku saliyo nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas dhibaatada ay haysatay. qiyaastii markaan bilaabay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam siiqada gaaban 3000 oo jeer markaan ku celceliyay bay tira siiqada caadiga. markii waxay tiraahday waqtigaas uu galay subaxii baan bilaabay, duhurkii bay tiri ayaan waxay tiraahday kadib waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ku yidhi yaa rabbi waxaan kaa baryayaa inay arrintayda maqribkii aysan gaarin, ilaahayow adiga xal ii heli kara yaa rabbi ayaan dhahay bay tiri. subxaan allah. waxay tiraahday dhibaatadii koowaad waxaa la xaliyay galabkii. tii labaadna waxay tiraahday wallaahi maana filayn bay tira inay hagaagi doonto. tii labaadna wuxuu ilaahay subxaana watacaala farajkii ii imaaday oo ilaahay subxaana watacaala ii fududeeyey salaadii cishaha kadib bay tiri. labadii dhibaato hal maalin keliya ayay wada dhammaadeen alxamdulilah. runtii aniga 3000 oo jeer waxay tiraahday isdhahayay tiradan way yar tahay, laakiin maalinkaas wixii ka dambeeyay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u fariistaa muddo yar 3000 oo jeer arrimahaygana way ii fududaadaan bay tiraahday. ma fiiriyo bay tira hadda lambar waagi hore waxa igu qufnaa bay tira walaalayaal inaan lambarra badan la yimaado, laakiin maalinka wixii ka dambeeyay bay tira waxaan rumaystay ijaabada
إلهي سبحانه وتعالى مر والبا إنو كسين كرو وحا إذن الله يها ولا ليال كالصونادا إله كالصونادا دعالينا يقين سبا إلهينا سيطلبا أغتاق بيتر سبحان الله إلهي ما مهدا إسكالي قصدانا ولا ليال إذن قبر باكشا كيسا وحي تري قبلو وحا إذن قلتلين لها إنا داداشان oo ku dadaashaan afarta ragce ee sunnada ee duhurka ka horeysa waxay tiraahday duhurka markii afarta ragco ka horeysa aad tukatid salaadii duhurna aad tukatid marka waxay tiri duceysta wax kasto aad rabtaan ilaahay weydiista bay tiri wallahi aniga waay aragnimo dhab ah ayaan u leeyahay bay tiraahday cibaadada hadaa ku dadaasho sidoo kale waxay tiraahday ku dadaal saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam marka akhrinaysa siiqada ibraahimiyada waxa tiraahdaa sidaan u aqriyo bay tiraahday aniga waxa dhaha Allahumma salli ala Muhammad adad khalqihi wa rida nafsi wa sinati arshi wa midad kalimati waxay tiraahday runtii aniga maalintayda waxay noqotaa maalin barakeysan oo qurux badan waxyaalo badan waa joogtay hal saacana waxa ku sameeyaa wax badan oo aan dareemayo oo noloshayda dhinac kasta taabanaya oo waxay tir noloshaydi qurux waxay tiraahday cibaadooyinka saa u jeclahay joogteynta saa u jeclahay qiyaamul leylka wax kasta waxay tiraahday ducadan ku dabaqa marka xilligaas waxay tir ducaystay kulli cibaado kasto ii fududaatay iyo arrin kasto ii fududaaday salaada duhur waxay tiraahday markii adinku dhaco ayaan waxay tiraahday tukada afarta ragcadood ee sunnada ee ka horeeya duhurkii baan tukada waan ducaystaa waxay tiraahday markaan ducaysto ilaahay inuusan iga xarimin qiyaamul leylka ilaahay inuusan iga xarimin acmaasha wanaagsan kadibna waxay tiri axwaasheedii ma sha Allah xilligaas waxay tiri ijaabo weyn baa ku jirta saliga nabiga kaleey salaatu wasalaamna waxaan u akhriyaa bay tiraahday sidaan bay tiri Allahumma salli ala Muhammad adad khalqi wa rida nafsika wa sinata arshika wa midad kalimatika soo akhriyaa bay tiri ma sha Allah ducadana ku ducaysa Allahumma inni astawdi'uka qiyamul leyl fala tahrimni يا بذنبي إلى ذنبي هيك حرمنا ميا مركب ما شاء الله تبارك الرحمن دعوينك ولا ريال runtii ducooyinka soo arooray iyo kuwa adiga Allah timid ba xilliyada cadiimka salaada waajibka kadib nabiga kaleey salaatu wasalaam baa inoo sheegay inuu istijaabo ku jirto marka ma sha Allah ka faa'iideysta walaalayaal qisadana ayadana gabar baa ka sheekaysa gabadha waxay tiri waxyaabo badan ayuu ilaahay ii fudeeyay bay tiraahday ilaahay baa mahada iskale sababtuna waxa weeye tira markaan ku dadaalay saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam dhibaatooyin iyo khilaafaad aniga soojkayga naga dhaxayn jiray bay tiri ilaahay wuxuu iiga xaliyay bay tiraahday markii aan ku dadaalay saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaahay wuxuu siiyay bay tiri gabdho badan bay tiraahday saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam markaan ku dadaalo waxaan ilaahay weydiistay wiil inuu ilaahay iigu daro gabdhahaygii ilaahayna rabitaankaygu ii rumeeyay maanta wiil aan jeclahay ayaan haystaa bay tiri alxamdulillah marka aan ku jiro waxay tiri dhibaato dhaqaale waxaan bilaabaa inaan intaan fariisto ku celceliyo saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam waxay tiraahday waana u dulqaataa dhibaatooyinka ilaahay baana rajeeyaa kadibna farajkii baa yimaada iyo fudaydintii dadka waxa kula dardaarmayaa inaad dulqaadkii isku darto iyo ficilkii iyo waxay tiri rajadii inaad isku darto ma sha Allah tabaaraka raxmaan marka ka faa'iideyso walaalayaal qisadan ayadana gabar baa ka sheekaysa gabadha waxay tiri aniga runtii ma aanan filayn bay tiraahday in wax kaste ay rumoomayaan bay tiri 50 sano kadib bay tiri ma sha Allah tabaaraka raxmaan waxay tiri sanado badan ayaan sugayay bay tiraahday duco aan ku ducaysan jiray bay tiri qalbigayga waxay tiraahday rajada iyo yaqiinta rabbigay waxay tiraahday kama dhamaan khayr ma mar walba ilaahay ka rajeynay runtii waqti dheer ayaan waxay tiraahday aan ku jiray bay tiraahday sugitaanka waxay tiraahday waqti dheer bay arintaasi ii suurto gali weyday bay tiraahday ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu ii rumeeyay kadib markii aan bilaabay inaan si joogta ugu dadaalo saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam siiqada ibraahimiyada anoo waxay tiraahday aan ka quusanayn kalsoonida ilaahay aan ku qabo waxa yar markii aan waday bay tiraahday 50 sanana arrinka aan sugayay bay tiraahday waxay tiraahday waxa dhacay waxa aan weligay filayn si laba filaana ayay waxay tiri arrintii aan sanadaha badan sugayay iigu rumowday bay tiri maalintaas waxaan fahmay bay tiri in dib u dhaca iyo waxay tiraahday arrimahaaga ducooyinkaaga inaad degdeg u arag iyo inaad rajada ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad ka qabto aysan dhamaan inay tahay cajiib bay tiri mararka qaarkood ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku kaydinayaa wax qurux badan bay tiraahday filaynin wuxuuna ku keenayaa xilli aadan filaynin bay tiraahday
haddii aad muddo dheer wax sugaysay fadlan ha quusan bay tiri anigu 50 sano hadda waa 50 sano yaa ducaan ilaahay ka rajaynaya waan helay bay tiri maasha allah tabaarak raxmaan ka warramo walaalayaal mar walba ilaahay subxaana watacaala rajadiisa ayaa lagu noolaadaa yaqiinna ilaahay waa lagu qabaa mar walbana ducooyinkaaga ma halaabayaan ilaahay wuxuu dhahay subxaana watacaala ودعوني أستجب لكم إبريا وإنك أجيبيا إلهي ونوبلنا قال إجابة ولا لي وهلنا بل سحجيبي نوقش أنا وما قرنينو نبينا عليه الصلاة والسلام حينوش دعوين كيا وحول بوناك سنو عن صمينه ودعو إلهينا سبحانه وتعالى وكوب دلياي حجيبي كوكش صدق إنه يتعاون بنوشه صلى الله عليه وسلم آخر هذا إن لجود بديجيو مصيبوي إن لقى قمانية مركا إن لقصينايو مرودو مركا وحلا ربا إن الرجال تكون ولاته قصدنا أيضا جوار كشة كسجودة وحيت الوقت أيان وحيت هذا نول شيء آذو أتكابا وحيت وحان دريم تري بتري الباب والبئين حرين هاي وحنا قلبي كب وحدة بيتر مروجو وحنا لها بيتر أرين أن أدوني إن يرفضوا ذاته لكن مدة أي واحد تري وقتكي سوى البواء الراذي وقوي تري مركز أيام بلا بيتر هذا أنا سيتشوكتا وسمي استغفارتا سلي النبي عليه الصلاة والسلام سيقظ إبراهيم يدا أنا إلهي كوكل صوم بيتر هذا إنه إلهي يفضلنا ينا وحيتر هذا أرنتها أرجنا رجينا يا بيتر waxaan la yaabay bay tiri wixii dhacay bay tiri kadib arrimihii aan waxay tiri u arkayay bay tiri haday kuwa xal aan lahayn oo adag ilaahay uu ii fududeeyay tiri waxaan ku helay bay tiri saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam istiqaarti arrintii oo ii fududaatay iyo risq iyo faraj aan filayn xataa runtii markii aan fahmay bay tiri marka qaarkood baahiyahaaga in ilaahay subxaana watacaala u sheegato ducooyinkaagana aad ku darto asbaabaha wanaagsan sida joogteynta istiqfaarta bay ahayd bay tiraahday weligay ma aanan macni arintaas ma aanan macni aqoon bay tira aqoonteeda maana lahayn marka maasha allah qisadana walaalay gabar baa ka sheekaysay gabadhan waxay tiri 48 sano ayaan waxay tiri la noolaa qalbigayga aan ku sitay arrin aan rabay inay ii rumowdo bay tiraahday sanadahaasoo dhan waxay tiri waan sugi jiray alla goormay ducadaada ku rumoobi doontaa goorma heli doontaa goorma ciriiriga dhibtaan ka bixi doontaa goorma jawaabta heli doontaa baa isdhihi jiray bay tiri waxay tiri waxaa jirtay bay tiri arrin aan aad u jeclaa ilaahay inuu ii fududeeyana aan jeclaa sanadaha badan ee 48 sanana waxay tiraahday waqtiyo badan aan geliyay si walba aan u raadiyay ilaahay aan bari ilaahayo aniga nasiibkayga ma la ilaaw baa dhihi jiray bay marka qaarkood markay ducadii deed sanada badan qaada 48 sano garanaysa waxaan dhihi jiray aniga nasiibkayga ma la ilaaw ma dhihi jiray laakiin inkastoo qalbigaygu daalay bay tiri haddana waxay tiraahday ma ana quusan jirin bay tiri waxaan ogaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu wax walba awoodo arinteydana ilaahay inuu iga og yahay bay tiri maalin ayaan go'aansaday bay tiri inaan cibaadada xoojiyo waxaan bilaabay bay tiri inaan salaadaha waqtiyadooda joogteeyo inaan saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam ibraahimiyada akhristo inaan ducaysto inaan waxay tiraahday waqti go'an oo cibaado inaan samaysto inaan ilaahay bari ya rabbi ilaayo arintayda ii fudude ilaahu khayriga dhiga deesa khayri ahayn ilaahu deesa khayri ahayn qalbigayga iiga saar ilaahu inta soo sanoba qalbigayga ku taagan tahay waxay tiri wallahi maalmo markay dhaafeen toddobaadyo ay dhaafeen bilooyin ay dhaafeen sanado ay dhaafeen oo inta aan wada bay tiri aan quusan bay tiri ayaa waxa dhacday bay tiraahday in aan waxay tiri in aan markii aan cibaadooyinka joogtay qalbigayga isbedel baan ka dareemay bay tiri murugtii walwalkii badnaa arrintii igu taagnaan jirtay inaan iska hilmaamay kadib maalin aniga oo waxay tiraahday aanan filayn ayaa waxa dhacay bay tiraahday wax maskaxdayda كوين وحيت أرنتي 48 سنة أن سوي إلهي ويفوز مركي أن وركا مقلي بيتري مدة أيان آمسي واي بيتري إندها يجا إلن وحيت ساوى صوت قلبي جيجا وحيت وحاك صباح سبحان الله إلهي وريجيس إما هلمامين والله وحيت وان أوي وحمركا وحيت فهمي بيتري مركز سكتان نظر دار iyo waxyaalaha maaragtay khasaarooyinka badan marka soo marto dhacdooyin sanado badan ducooyinkii aadan arkin waxay tiri wallahi waxaan ogaaday in ducada aan ilaahay subxaanahu wa ta'ala u dhimin waana waxa dhigi jiray ilaayo ma ilowday arimayga laakiin sabarka iyo waxay tiraahday
rajada inaan dhumin ayaa ummadda islaamka kula dardaarmi lahaa bay tiri. waxaan bartay casharo muhiim ah. waxay tiraahday waxaan aad iyo aad u dareemaa markaan akhrinayo aad ugu khushuuca aayadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu leeyahay inna maca alcusri yusra fa inna maca alcusri yusra. waxay tiri walaalayaal maanta markaan dib u eega bay tiri sanadihii oo dhan waxaan idhaahdaa alxamdulilah inaanan quusanin, inaanan macnihii rajo dhigin, inaa ilaahay ku kalsoonaa. marka waxaan leeyahay bay tiri ummadda islaamka haddii adigu aad maantay sugayso arrimo, waxay tiri wad cibaadada joogtee, wax walba ku dadaal, farajka ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ilaahay qadaro wuu imaanayaa. ma fahanteen walaalayaal? marna ha quusanina. maasha allah tabaaraka raxmaan. runtii waxaa fudaydinta ilaahay baa subxaanahu wa tacaala iska leh. marka maasha allah asbaabaha wanaagsanna waa lagu dadaalaa. ka faa'iidaysta qisaskaas walaalaha qaariga cajiibka. khayr iyo farxad baa dhammaantiin idin wada rajeynayaa. meel kastoo caalamka igala socotaan dadaal wacan baa leeya walaalayaal. waa idiin soo duceynayaa, ana ii soo duceeya. khayr iyo farxad baa idin wada rajeynayaa. wixii aan khalday nafteeda shaydaan bay ka ahaadeen, wixii aan saxayna fa min allah. wabillahi towfiiq. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.